Bismillaahi Rahmaani Rahiim. Waxaa duruus cabdi madar oo ku talagalay cashar ku saabsan sidee passwordka looga bedelaa internetkaaga wifi-ga isticmaalaysid. Haddii uu yahay hormuud, haddii uu shirkad kale yahay. First of all, waxa ugu daran oo ugu muhiimsan waxaa waaye inaad ogaatid wireless-ka isticmaalaysid IP address-kiisa. IP address waxaa waaye internet protocol kaasoo loo isticmaalo waa unique number waaye oo every wireless oo lahaanayo. IP address-kaaga ma kula isticmaali karo qof kale. IP address-kaaga waa number kuu gooni ah. Marka waxaa u baahan tahay wireless-kaaga markuu kugu xiran yahay internetkaaga oo aad taqaan password-kaaga markaa gashid, waxaa riixaysaa meesha wireless-kaaga hadda kan Uniso ku qoran yahay Uniso imaaw. Waxaa qasab inaad ogaatid IP address. Meeshan IP address-ka uu ku qoran yahay 192.168.8.1. inta kale iska daa marka. Wanka wixii ka dambeeya iska daa. Waxaa u baahan tahay marka IP address-kaas inaad kor ka xafidid cancel leh. Marka waxaa imaanaya IP address-kaaga markaa haysatid browser-kaaga imaanaya. Browser-kaaga markaa imaatid any browser oo kugu jiro Google ama internet ama Topside mid walba oo kugu jiro aad tagaysaa. Markaad tagtid waxaa u baahan tahay marka inaad meeshan ku qortid IP address-ka lagu siiyay exactly hore ka galaata kan 192.168.8.1. haddii aad ku celiyo wax kale adigoona qorin Google iyo waxaas adigoona qorin ayaa waxaa sameynaysaa 192.168. internetada meeshan ayay ku kala duwanaadaan 8.1. kuwa qaar waxay yihiin 1.1. kuwa qaar waxay yihiin 192.168.0.1. marka IP address-kaaga markaa ogaatid meeshan ay ku qoran tahay web page hoos linkigan ugu hooseeya web page ku qoran tahay imaane. marka linkigan hoos imaatid internetka isticmaalaysid iyo wuxuu ku siinayaa information-kiisa no service. internet hadda aan service isoo gudbinin ayaa ku xiranahay. statistics-kayga wixii dhan waa kuwana. marka waxaa imaanaysaa meeshan statistic markaa imaatid wuxuu ku weydiinayaa waxaa jiro admin login wax loo yaqaan. admin login wax kale maahan internetka intaadan galin inaa horta admin waa furaha ugu horeeya ee internetka lagu galo shirkadda kusoo siinayso. haddii aqoon weysid waxaa u baahan tahay markaas inaad weydiisid dadkaaga dambeeyay internetka aad isticmaalaysid wifi-gaaga. okay login hadda wixii ka dambeeya marka waa la hubaa inaad adiga tahay oo soo gashay. okay hadda waa kana connected WLAN client. hadda qofka isticmaalayo aniga kaliya isticmaalayo IP address-ka uu siiyay waa kana. mobilka ka isticmaalayo host name-ka waa kana. maga duration-ka isticmaalayo operation-ka hadda block hadda ku qabatid telefonkaas dambe markaa isticmaali karo. marka setting imaaw. setting markaa imaatid ayaa waxaa rabnaa password-ka inaan bedelno rabnaa. okay meeshan configure profile setting-gan waa network aad haysatid shaqadiisa waa kaas ha galin. waxaa leedahay marka next markaa dhahdid waa kana marka meeshan waa password-ka meesha laga bedelo. name SSID service set identifier oo loo yaqaano. meeshan ayaa waxaa ka bedelaysaa name-ka uu soo qabsanayo iyo password-kiisa. okay hadda bedelo Uniso aan ka dhigo test. password-kii hore aan kusoo galan waa iska bedelaya. waxaa ka dhigayaa 1 2 3 4 5 6 7 8. okay finish markaa dhaw automatically internetka anigana waa iga tagayaa. qof walba oo internetka isticmaalayo oo ugu xiran yahay wuu ka tagayaa. wuxuu ku leeyahay fail. okay fail markuu idhaw micnaheedu waxaa waaye haddii kow inaa soo galo waaye. wireless-ka daar. wireless-ka markaa daartid haddeertaan kusoo laabo meeshii ahayd Uniso waxay isku bedeshay UC testigan marka waxaa ku galaynaa 1 2 3 4 5 6 7 8. password-kan waa password wireless password waaye. password-kan waxaa loogu talagalay connected wuu nagu xiran yahay haddeertaan. haddaa home page-keena aadna hadaaya aan ku jirnay meeshii oo 192.168.8.1 wuu ku laabanaa sidii toos u noo geynaa. marka waa password-ada laba waaye. midna waxaa waaye admin-ka weyn, midna waxaa waaye password-ka kale oo
wirelesska. Marka hadda kan aan bedelnay waxaa waaye wirelesska waaye. I hope so in la fahmay. Billahi tawfiiq. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.